dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in xabsiyada ay ka sii dayn doonto kumanaan maxaabiis ah si loo yareeyo faafitaanka fayraska corona. xeraalyaha guud ee Itoobiya Daynayo oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay xabsiyada dalka looga sii dayn doono ku dhawaad 4,000 oo maxbuus. maxaabiista la sii dayn doono ayuu xeraalyuhu sheegay in badankood ay yihiin maxaabiis u xidhnaa dembiyo fudud iyo kuwo maandooriye la xiriira oo ay gabagaba ahayd muddadii lagu xukumay inay xabsiga ku sii jiraan. warbixintii ugu dambeysay ay soo saareen hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa tilmaamay in xaaladda xabsiyada dalka Itoobiya inay aad u liidato, mararka qaarna ay suurtagal tahay in maxbuusku ku dhex geeriyoodo gudaha xabsiga sababo la xiriira ciriiriga, cunno yarida iyo adeegyada fayadhowrka oo aad u liita. Itoobiya waxa ay diiwaan gelisay ilaa 12 xaaladood oo fayraska corona ah toddobaadyadii u dambeeyay. dhammaan dadka laga helay fayraska corona iyo ilaamaha Itoobiya ee dhinaca caafimaadka sheegeen inay ahaayeen dad dalka dibaddiisa ka yimid, halka qaarka kalena ay ahaayeen dadkii la macaamilay bukaamnadaas.